أنا مقعي حسن مهدي عبدي أنا حرفضيستي كشقي gobolka Nugaal Garowe oo ah la yaraayo magaranaysaa ka shaqeynaya qudaarta sharaabka seekada ah shiidayeen ganacsiga magaalada Garowe waxa ku soo biiray goobo ganacsi oo lagu sameeyo cabitaanada la shiido oo ay dhalinyaradu hal abuurtay si ay ugu noqoto shaqo abuur waana hal abuur ku cusub magaalada Garowe oo ay dhalinyaradu la timi haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada furtay goobaha ganacsiga ee lagu sameeyo cabitaankan oo aan la kulmay ayaa waxa ay nooga warbixiyeen goobaha ganacsi waxa ku dhaliyay fikradan cusub ee ay la yimaadeen iyo xilliga ay shaqadan bilaabeen magacayga waa Cabdishakuur Maxamed Nuur baa la yiraahdaa magaalada Garowe ku noolahay gaar ahaan xaafadda Masaajidka Al-Huda ayaan ku noolahay meeshan sharaab sakaabaan ku shiidaa muddo 2 bilood bay furan tahay bishii saddexaad baa hadda u socota magaalada saxan sax baa la yiraahdaa sharaabka sakada baan ku sameeyaa sida liin maanta afikaadhada babayga batiiqa anamooska looska sasenta waxaasan ku sameeyaa marka waa shaqaad u wanaagsan anu hadda muddo ma garanaysaa goorma kugu dhalatay fikirkan ah inaad meeshan furto oo sharaabka seekada shiido wallahi niyahow fikirkan mardhow buu horto isoo galay inta ka horeysay horta waxaan ahaa lin ma garanaysaa dad u soo shaqeynay laakiin tan waa waxa anu aan leeyahay anu gacanteeda aan ku furtay barnaamijkan mardhow buu isoo galay marka dhalinyarta runtii joogta magaalada runtii waxaan ku boorinayaa inay shaqeystaan waxa arkaysaa lin dhalinyaro oo ma garanaysaa talent le qurux badan baa arkaysaa amal haynin oo guriga hooyadii dabcan ama aabihii ma garanaysaa bariis ku sugaya waxaan ku boorinayaa dhalinyarta Soomaaliyeed inay shaqeystaan waxa arkaysaa lin dhalinyaro oo leniyo boorsahan baarsa arkaysaa le wadan kale aadaya waa shaqo tagaya le arkaysaa qudaartan hadda halka ku shiidayso sida aan u jeedno lin macaanti baa kamida batiiqii afakaadhadii kulli wada haysta xaga kaaga yimaada aad iyo afakaadhadan waxay iga timaadaa dhinaca Itoobiya batiiqa waqooyi iga yimaada iyo babayga liin maanta Masar bay iga timaadaa ambaha koonfur galbeed uga yimaada saytuunku waa lamid hadii Ilaahay ku roon yahay inta arkaysan meesha ku shiida waa ma sha Allah Ilaahay ma garanaysaa خير بالله يجسي وأنا كل هذا نهاي. قريب واحد تري مصر بيكاجت ماذا؟ اللي معنته. بيكاجت ماذا؟ بطيخ حوك هاي ماذا؟ بطيخ يببايع وهي ماذا وهي. وياه. مسكك بحيان هذا قيمة هذا مركع. عاديات إن بدن. هل كلاس عبتانك وهذا رد شديد أما أنا ما صنع قضاء بطيخ أنا أنتسيس. هالك اللي هرت اللي بقي بدوية قيبتي مركوك الشراكة مركو سفارية هي 1.2 بالسيا. مركو وفدي هي هل دور بالسيا. فكر كان وحول شيء هذيك كب دور بلاد كار 7 بلاد ميلاس كار إن شاء الله هذا نواودنا وكاميرا دلنا. كاميرا راشة. قدرتن هل كاتوشيدو محاكمة. محاكمة قرها قبائق بطيقة عنبها زيتونك لين معان يو وحي كلو لا المال قدرته. وايه حاجة كاجي يمادان قدرتن أبنشة كوشيدا. قدرتن وحي كي يمادان كوا وحي كي يمادان هرجيسة كوا وحي كي يمادان هذيك بلويني. قيمها يكوي يمادان يقيمها كوشيدو مركعات شيدايسو مسكها بحيان. والله فرق يربع ودحية وحيرنا ولا جهلا لكن هدي قف كدي وشقرب وما فيري وحو كهلي وحو الرواين إن هذيك آخرتان كانوا وحفي عن ميل في عن جارو. وايه مركا واحد شتقدار كسر قاعدة مجال Garowe أو كم تاي بطيخة كوا Garowe كجوا أدوك ما قدمية. ما هي كوا Garowe كسر قاوان كذا وحكم ده بطيخان هذا اللي كاني وحكم ده بابايغا وحكم ده intaas iyo liintanaanta intaas baa ka soo go'a Garowe iyo qudaar kale oo yar oo adiga aan hadda dhalinyarada maxaa kula talin dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inay shaqeystaan oo wadankoodu ay ka tahriibin meel walba shaqo taala cabitaan meel yar hadda iska furatid wax walba lacag waa helaysaa inay joogaan wadankoodan kula talin xasan mahdi cabdi waa arday wax ka barta jaamacadaha caasimadda waxana uu ka mid yahay dhalinyarada ku shaqeysata halabuurkan cusub ee cabitaanka la sameeyo waxa uu inooga warbixinayaa sida uu isugu wado shaqadan iyo waxbarashadiisa iyo muhiimadda ay dhalinyarada u leedahay in ay dalkooda ka shaqeystaan aniga magacaygu xasan mahdi cabdi ahna xirfadayste ka shaqeeya gobolka Nugaal Garowe oo ah dhalinyaro ma garanaysaa ka shaqeynaya qudaarta sharaabka seekada ah shiidayana
aad baan idinka mahad celinayaa marka halka ka yimaado waxa laga yaabaa midka aad uu jaban yahay ka koonfur ka yimaada kana uu xoogaa ka qaalisan yahay maadaama ay horta micishada Garowe ay kaga duwan tahay magaalooyinka kale oo micishadiisa xoogaa kor u kacsan tahay xoogaa waxaan raacnay taa markii kirada lagu soo daro in uu jaban yahay kuwa kale dhalinyarada waxaan u baaqayaa horta inay dhulkooda aaminaan oo ka shaqeystaan xifradoodana aaminaan waxa weeye gacmahoodana skillskana bartaan hadda anigu waxaan ahay shaqsiyan arday jaamacadeed ka dhigta Boosaaso University degree waxa weeye economic oo accounting ah BBA ah sharaabkana shiidayo shaqeynay galna wax jaamacad aad iyo galna sharaabka magaranaysa shiidaya waxa weeye qofku intuu ka fikir lahaa wadan sare ama xafiis dawladeed iyo hamis sare u raadin lahaa in dhulkiisa aamino skillskiisana wax barto waxna barto skillskiisana uu ku meel maro taasaan ku dhiirinayaa dhalinyarada shaqo la'aanta baahsan ee wadanka ka jirta waxa ay maraysaa meel aad u sareysa iyadoo ay dhalinyaradu la imanayaan hal abuuro cusub oo markaasi ay ku shaqaysanayaan